تقين habeenkii geelida iyo majlisada nolosha ay leedahay buuga si guud wuxuu ka sheekeynayaa taariikhda ku dhacday walaalka Cabdixakiin iyo awoonta al-Saqiim iyo waxbarashadooda iyo qaybahooda kala duwan sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa Cabdixakiin maadaama uu yahay xaaji Iibaan Gadow Geedi taariikhdiisa oo aan ognahay degmada Caleer iyo deegaanada Soomaaliya oo taariikhda uu leeyahay marka waxaan raashaa in abdullah guddoonsiyo waxa waaye runtii buugan taariikhda uu ka sheekeynaa bilowgeedii waxaan ka mid ahay dadkii goobjoog ku ahaa dhacdadan runtii waa dhacda xanuun badan ay eeday waxay ahayd dhacdo dhacday xilli wadanka ay ka taliyeen nimanka hogaamiye kooxoodka loo aqoon jiray oo guud ahaan dalka uu isaga jiray xaalad kale arrintan waxay leedahay dhacdadan dhowr xanuun ay lahayd waa mid koobaad ee qof Soomaali ah oo birmageyda ah ayaa la dhibaateeyay xanuun ay ahayd xanuunka labaadna wuxuu ahaa in dadka dhibaateynayay dad isku hayb ahaayeen oo yaqaano saxab ahaayeen midda saddexaadna waxay ahayd in hoygiisii oo ahlkiisii qaraabadu ku sugnaa dhaxdiisa loo geystay degmada Yakshiid qaasatan suuqweynaha Suubacaad ka soo horjeedka daarta dheer ee Wiif guri dhanka qarax Soobax ka xiga iyo qasada ka dhacday xilli galab ay ahayd waan xasuustaa ninkan sida ciwaan ka muuqata ee dhacdo u dhacday oo dhimasha looga tagay oo sida buugga in cid akhris ay ka arki karto ninka xabadaha ku dhiftay waxa la yidhi ninka naga xaqiiji oo laabtay xabad dhameystir oo ku dhiftay wuxuu yiraahdaa ninkaas waa soo dhameystiray dan meeshii waxa ku soo baxay dadkii meesha ka dhaway xaafadda iyo ahalkii qaraabadii waxa loo qaaday ninkani iyadoo meyd ahaan loo wada markaasi laakiin la xaqiijiyo in dhimashadiisa la xaqiijiyo waxa loo qaaday isbitaalka Xayaat ee ku yaalay Xamar Jajab meeshii markii la geeyay ninka kooma muddo ku jiray sida uu ka sheekeynayo in badan ayuu dhacdada korkiisa ka dhacayso iyo la socday oo aan noolahay ma noola qaarkood ay ku murmayeen ninkan waa uu dhintay xagee noogu dhow qabar ku saacaddoodna iyo meel hablaaya aan geyno iyo amaankeeda fiicnay meesha lama geey karo marxalada runtii murakaba istur saaran oo aad u xanuun badan waxa ilaahay maadiisa walaalka Cabdixakiin Cabbaas Xaaji Iibaan Gadow Geedi in macruuf aad loo yaqaan degmada Caleer dhalinyarada role model-ka ah ayuu ka mid yahay arrintaas waxay ka liftay marka natiijada maanta oo ah inuu buugan oo dhacdo ka qoro inta kaliya maahan maadaama nin dhimasho meel u dhow tagay oo hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo bogsiyay in ay ku dhalisay inuu xasuusto aakhirada iyo meesha la socdo iyo fursadda maanta iyo haween inuu dib intuu soo maxaan ku yiraahdaa kabsado oo Allah subhanahu wa ta'ala aqdaadi uu galay uu toobad keeno wixii wanaag uu ka gaabiyo uu sameeyo marka waxa xusid mudan qadiyadaas aniga waxaan baxshay naxdintii nacfiga dhashay